munaasabad ballaaran oo loogu baroordiiqayo xuska sanad guuradii koowaad ee weerarkii gaariga loo adeegsaday ee sanad ka hor ka dhacay afafka hore ee masaajidka ku yaala xaafadda Finisbury ee degmada Islington ee magaalada London ayaa halkaasi lagu qabtay. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay hal ruux halka 8 kalena ay ku dhaawacmeen, iyadoo ay xusid mudan tahay in 7 ka mid ah dadkii dhaawaca uu soo gaaray ay ahaayeen Soomaali, waxaana si wadajir ah loogu afuray goobtii uu weerarku ka dhacay. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadanka UK Mr Jeremy Corbyn iyo mas'uuliyiin kale oo waraysi gaar ah siiyay telefishinka Home Cable ayaa waxay ka hadleen dareenkooda ku aadan dadkii muslimiinta ahaa ee sanad ka hor lagu weeraray afafka hore ee masjidka ku yaala xaafadda Finisbury, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxa sababta meesha la isugu yimi waxa weeyaan terrorist attack ka dhacay 19 June sanadii hore aan ka soo gudubnay oo in 9 qofna ku dhaawacmeen oo odaygaygu mid ka ahaa iyo in Makram Cali oo ku dhintay sida aawadeed baa keentay in community-gu isdhex timaado isdhex gasho oo wada shaqayso oo wixii xunee midab kala saarka dadka kala soocaya aan ka wada jirno. Welcome to the Home Cable TV. Thank you. Isn't it fantastic to be here? Isn't it a lovely atmosphere? Maayarka degmada Islington ayaa waxaan weydiiyay dareenkiisa ku aadan dhacdadii sanad ka hor ka dhacday goobtan. Wuxuuna yiri celebrating it as one wonderful community. I have been with this evening Christians, Buddhists, there's Hindus here, and of course this is a wonderful Islamic festival. This is Islington. We are a community. A year ago we had an awful event. Somebody died and a car drove into someone else who was in hospital. I came here with his wife. Aniga Wahaidoga Islington. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadanka UK Mr Jeremy Corbyn oo aan weydiiyay dareenkiisa ku aadan sida uu arko dhacdadii sanad ka hor ka dhacday goobtan ayaa waxa uu yiri This is the iftar supper for Finsbury Park Mosque and Muslim Welfare House. halkan waxaa la isugu yimaaday in lagu wada afuro isla markaana aan dhiirigelino howlaha ay qabanayaan masjidka Finisbury ee khayriga ah. Ma ahan oo kaliya inaan ay ka shaqeeyaan diinta oo kaliya, balse waxay qabtaan howlo kale oo samafaleed. qof waday gaari faan ah ayaa dad jiirsiiyey. dadkan waxay ka soo baxeen masjidka Finisbury oo ay salaada ku soo dukadeen. dadka wada midab kala sooca nama kala saari karaan. waa inaan u midownaa haddii aanu nahay jaaliyadaha degan magaalada London oo aan dhinac uga soo wada jeesanaa dadka wada midab kala sooca. dadkii maragtay muslimka kii isaga markii hore waxa laga haystay kuwa wax dila oo leeyihiin, laakiin waxa la ogaaday dad cadaan ah inay kuwa wax dila yihiin. muslimkiina markaas ayna waliba ayna ninkii xitaa wax dilay way qabteen, way nabadgeliyeen, booliska loo dhiibay si wanaagsan oo nabadgeliye ayaa loogu dhiibay. dadka 8 ruux ayaa meesha ku dhimatay ku dhaawacantay. hal qof mooyee in 7 kale Soomaali ba ahayn. halkii dhintay wuxuu ahaa nin Bangladesh ah oo Sheekh Ibrahim soo ka sheekeynayay arintu dhacday sanadka hore. dad badan oo kumanaan gaaraya baa masaajidda yimi, xataa qaybtood iyagoo ooyaya oo waxay leeyihiin naga raali noqda, anagu waxaan raali ka nahay maaha, waan soo dhaweyneynaa, waxaan ku faraxsanahay inaad joogtaan. marka intaas kumanaan warqadood baa soo gaaray masaajidda oo muslimiinta uga tacsiinaya dhibta iyo dhibaatada soo gaartay. marka arintan waxa weeye fursad dadka muslimiinta ah waliba xaafadan degan ay tahay inay ka faa'iideystaan. waxaan u arkaa inay fursadii sida uga faa'iideysan lahaayeen weygeeda ama jidkii loo mari lahaa inay ku jiraan, oo ay tahay dadka in la isugu yeero, dadka in loo naxariisto, dadka in la soo dhaweeyo, dadka in la tusiyo inaan nahay diin salaam inaan nahay. Cabdi Fataax Ali Shirwac, telefishinka caalamiga Home Cable magaalada London.